xagee laga fiirinayaa hogaaminta waxaa jira buug la yiraahdo The Leadership Challenge oo kamid ah buugaga ugu fiican dunida buugaas qorayaasha qoray labada qore oo qorta waxay sameeyeen cilmi baaristaas oo ku salaysan waa maxay sifooyinka ugu fiican ee qofka hogaamiyaha laga fiirinayo ayaa la weydiinaya dadkaas oo dhan 1 milyan iyo bar waxay isku waafaqeen tilmaanta koowaad sifada koowaad ee qof hogaamiye ah lagu doorto marka qofkaas loo magacaabayo xil position ama meel inuu hogaamiyo nooc kasta ay tahaba in ay tahay in hogaamiyahaas uu yahay qof la aamini karo oo lagu kalsoonaan karo kalsoonida iyo aaminaadda ayaa waxay noqotay sifada koowaad tilmaanta koowaad ee hogaamiye kasta lagu cabirayo waxaan rabaa qof markaad wax u dooranayso ama aad samaynayso inaad ka fiiriso sifadaas iyo tilmaantaas dunida cilmi baaris badan runtii looga sameeyey oo macnaheedu ay tahay qofkan inuu yahay qof lagu kalsoon yahay hadalkiisa bimacnaa waxaa loola jeedaa lagu kalsoonaan karo la aamini karo in waxa uu sheegayo iyo waxa uu samaynayo inay isku mid yihiin qof kasta oo waxa uu sheegayo ama iyo waxa uu samaynayo ay isku mid yihiin waa qof la aamini karo qofka aysan isku mid ahaynna ma ahan qof la aamini karo sidaas darteeda in qofka la aamini karo la isku halayn karo lagu kalsoonaan karo aadan ka baqin inuu khiyaano aadan ka baqin inuu farasweynaha kaaga boodo aadan ka baqin inuu dhibaato kugu sameeyo markaas ayaa waxa abuurmaya xiriir fiican ee u dhaxeeya qofka hogaamiyaha ah iyo dadka uu hogaaminayo nooc kasta ay yihiin markaas ayaa waxaa dhacaya arrintaas marka in lagu kalsoonaado waa sifada tilmaanta koowaad oo 10 tilmaamood oo barnaamijkan insha Allah tacaala aan idigu soo gudbin doono sifadiisa koowaad waa in la aamini karo iyo laguna kalsoonaan karo qofka hogaamiyaha ah ee runtii xil loo dhiibayo that's why rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ahay ama lagu tilmaamay saadiqul masduuq saadiq furlow ah al masduuq ee la rumaysto sidaas darteeda ayaa kalsooni badan ka dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii raacsanay oo asxaabtiisa ahay ilaa risaaladiisii iyo fariintiisii dunida oo dhan ay ku baahdo oo maanta ay marayso 2 bilyan wax ka badan oo qof ah inay rumaysanayaan idan kalsoonida noocaasa aad iyo aad ay runtii muhiim u tahay marka laga hadlayo qofka hogaamiyaha ah maxaa lagu dooranayaa qofkan inuu yahay